بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضمان داول الله هويوينka intii marwooyin ah intii dhalinyaro ah mustaqbal intii soo korayso da'yarta ah dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh. markaskana waxaa loogu macdaray Zaynaba binti Jaxsama waa saxaabiyadaas qaaliga ah loogu macdaray gabdho Zaynaba oo kale inay soo saaraan rabo insha Allah tacaala. gabdho Zaynaba oo kaleeta ah inay markaska qarajaan oo macalimaad noqdo oo risaalada iyo dacwada jiyo soo saar u gudbiyo insha Allah tacaala. موضوع لبدا dhinaca ka taabarna insha Allah tacaala labada dhinac waxa u doortay laba case oo ka socda baraha bulshada waana aragtay kulli wala socota insha Allah. ta'hiilul muallimiin qofka inuu mu'ahal u yahay shaqada macalinimada qofka inuu u yahay mu'ahal aqoonteeda inuu leeyahay iimaankeeda inuu leeyahay alla ka cabsigeeda inuu leeyahay way iftiijin duruq tadriisna inuu yaqaana iyo furuqul fardiyya qorana u sheegnay dadka si u kala duwan yihiin. marka yaa mucallin noqon karo qof kasta intuu iska soo labisto oo qamiis iska soo qaato ama xijaab iska soo qaato mucallin waa iska dhah oo meel iska fariisto oo marka ilmo lagu aamino oo marka hadhow dhif ka dhalato ma qofka marka ummadda yaa mucallimka awwal mucallim fi hadhihi al-umma yaa waa nabi Muhammad alayhi salaam. anbiyada kulligood mucallimiin ay ahaayeen وإلهي صادر الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إلهي قدرتا ملائك ضدك ملائكته قدرتا رسول وأذيكته وبن آدم كي إلهي أقرأ دحي سبحانه وتعالى ضد كان إلهي قدرتا ضد رسالة الوسودية. marka معلمين كواد بن آدم كلها يا أنبياء وحرفة الأنبياء وشقة الأنبياء قف كست مقام كرا شقة أسمر أصلا مؤهل وإهل مقام كرا ما qaban karo. marka waa inaad horta marka hore koo aqoonti macalinimo inaad leedahay dadka wax u soo gudbinaysa. macalinimadu way sii kala farcamaysaa. macalin علوم القرآن معلم قرآن معلم عربي معلم تاريخ معلم حساب معلمينta waa kala duwan yihiin maadooyin kala duwan mid walba shaqada uu qabo معلم physics معلم chemistry معلم siyaasadeed kulli معلم juqraafi taariikh kulli معلم حرفة معلمين ويبدأته بني آدم في حسوق معلم ماذا لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم واحد أقول قفك لا يقان قفك أسكال ويدي وكقاضي والذين أوتوا العلم درجات مركا أضم مؤهل أهان ومع شقادي معلم ماذا أنا إسكا سوقش عد كل حساب تمسي دولة لا أنت يدروفها يجمعيسي وحيابا وكتب وحاول xirfadii diinta inay noqoto wax la saga shaqeysto oo dhaqaale laga sameeyo oo qofka isaga aqoon lahayn marka waxa ka dhalaysa marka waa qof jaahil oo ilmahaada u dhiibto wuxuu sameeynaa marka wax walbo dambi oo la galo iyo khalad kasta oo la galo qofka inta badan jahli baa u geeyay hal calimtum ma facaltum bi yusuf wa akhihi id antum jaahilun. yusuf walaalis inay dulmiyaan maxaa ku xambaaray inay ciil ku tuuraan shaydaan sabab markaas ma ogtii waxa ku sameeyay Yusuf iyo walaalihiis muxuu dhahay cibaarado isticmaal id antum jaahilun. idna kastoo dibka soo dhaca maxaa asal u ah jahli waa asal u ah. marka waxa la rabaa marka qofka macalinka inuusan ahayn macalin iska jaahil oo maxay ahaato oo faariq ah oo aqligiisa iyo iimaankiisa u faariq yahay in ilmihi lagu aamino oo marka wuxuu rabo ka sameeyo marka waalidiintu waa inay noqdaan waalidiin baraarugsan oo soo jeed. maxaa la soo faafay bariyahan macalin hunguriyeeye asal ahaan macalinaha haddana gabar ilmo haysato guursada laba shay u kala qaadeen oo laba gabdhood haysato guursaday kadibna arxumeyn ku dhaqaaq qofkaas bilaa calayga ma qof iimaan leh ilmo xirfad macalimo istaahila ma istaahil sama maxaa waa jaahil sama ku dhiiraday rabiiba gabar yar xaaskiisa dhashay حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بابا زينب بنت زينب زينب بنت أبي سلمة رسول كبرباري صلى الله عليه وسلم محل يقان حبيبة رسول الله لو يقان قالوا النبي كبرباري عليه قول النبي كبر عمر بن أبي سلمة النبي أم سلمة على شيء
guriga nabiga ku barbaareen marka inuu qofkii hunguriyeys maxaa ku kalifay dee aqoonta uu quraanka iyo waxa uu ka sheegay aqoonteeda ma laha hunguri baa ka galay hunguri ayaa ka galay qofkaas kale ilmo ma loo dhiibi karaa marka ilmo ma loo aamini karaa waa inaad iska fiirisaa background check up qofka quraanka uu dadka baraya horta asaga jaasam ka haystaa ma xifdisan yahay tafsiirkiisa ma yaqaana akhlaaqdiisa waase iimaankiisa waase muxuu yahay markaas ka bacdi qofka la dhihi kara qofka alla leh waa muahal waa qof quraankii munaasib ku ah oo dadkii bari karo haddii hore foolxumatii ugu weyneed macallin quraan lagu sheego soo dhibaato ma taas macnaheedu macallimiinta dhan wada caynayna ma aha macallinta quraanka la wada dhalinayna ma aha inta xun ee ku dhex dhuumanaysa inta xun ee ku dhex dhuumanaysa in la iska qabto oo la iska fiiriyo oo dadka loo loofayo taas waa qodob oo waxa ka dhalanaya marka waxaas oo kale fadeexadaas oo kale haddii xataa hooyadiis gabadha uu guursaday hadday kala tagaan gabadha rabiibada dib u guursan karaa ninkaas uu guursan kara sooma for abad muxram ay u tahay muxram hadday hooyada xataa kala tagaan taas waa qodob kale tan gabdhaha xaleena marka kaliib hore oo faafiya jirta oo la gabdhihi ilmaha abood u sabar waa lagu qaylay waagaas waa la caaytay yaa jaxiimo ku sabri kara yaa kada waxa la dhahay anoo kala ka dhalanaysa إلهي محمد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إن ننكي الماء أورش إسكول أفتان وهشيان وضنت الماء في ريان إن ننعصب قرست كشرع على أمانت يلا أمانة كي هرسما وبعولتهن الله ننكي ذي هرايا أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح وحي شرع الوكالة تقهدي قلت كش أما يدأ يودي أما أساق أودي inta la iska dhaafo oo qaladka laga tanaasulo asaga u xaq leh ninkii hore ayaa u xaq lahaa sababta maxay tahay waa isdabeecadii qanasama ilmihii dhexdooda alla ka beeran iyo dan u tahay waxay dan u tahay labadii qofood ilmihii wax ay ka jecel yihiin ma jirto ilmaha labadooda waalido isku meel ka soo toosay isku faraxsan waraal iska marka nin islaameed intuu fiirin lahaa marka kaadi hore ku dhaam sama هيا قبلها أي سماية حكمية هذا لا جورس مثلا أيدي ببهوين وين مسرت هلا فريتر هلا فريت قولي جد محي كنت مسك جوار هذا إيمان سما وإنا وإحنا نقعد نتور له هين وحير جوكتي مركب عبار ماله جوكتر هير الآن إن الناس كانوا قطع كوكل الناقل هي جورس صح مية شال محمد عريس ما شال محمد عريس كيهر محاوتك يا كان بصناف سما قبل Soomaaliya ogeyn qaado ilmahooda maxay ahayd nin kale nin labaad xaas labaad u noqonaysa ama saddex u noqonaysa qofna kuuma soo fududaanaysa marka soo dhawaato ma kana bahween u heedo karaamo ku leedo maxay ahayd oo ku dhaqaaleysana maxaa isaga sabraysa ku kale inta mid labaad iyo saddexaad u soo noqon lahayd marka waxyaabaha oo gabdhaha ka qalad maxay ahayd aqli yarida u keenaya kamida وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير هذه قورة كورة إنك إنه كسن تاجا أمر هرك لأنه سمسورة ودانس وبلاوة إن إسكاعل سترة ورهن واحد قد بالصلح آخر كجرا ولا إن تصالحان ويقعد إحدى الشيان آخر كجرا إسلامك إلمها أو إله النافير أصبرك وحال روا إن كيف كرتان شارك أنت ضدمين محاكا لنا لكن أنت أكاد إسكت مني أو نك إسكت فرن محاكا لنا نتيجة كذا إن إسكت فيرس سوى حاله كلا إسكو قفصا وهذا قبل هذا اللي هو مريين أما نكيد أنا كوك هاي أما كل جود جون أكل وعيق ما أنت الوجري فتنت ساعته واحد إسكوها لين كرما واحد لا يلقى مانجر هاي بابك حضانة هذا نوع مو فقه وحصل وحكى أشياء كليب كجوار سماع كل يوم ضوات صح بابك حضانة مثل الله إمام نبي على أساس فقه ilmaha xanaanadooda iskala marwani iskala hooyada iska dir halka kala tagaan aba ay hooyada kala tagaan oo labada qofood ilmaha isu dhalay kala tagaan caruurta cimrigoodana waa la fiirinaa cimrigooda hadii aad u yar yihiin ma hooyada u xaqle hadii dad waaweyn yihiin ma abaha u xaqle hadii meel dhaxaad yihiin yaa u xaqle mar cimriga ilmaha waa la fiirinaa labada qofood kee ku haboon ilmaha inuu haayo ma hooyada ku haboon inuu hayso ma abaha ku haboon inuu haayo
ما لو ما لقى دح بحنا قف كلا هينا أحكام تاسون بابك حد أنا ذي كفوت هلا قبل حديث الصحابي أو ساق هذانا والنبي عليه الصلاة والسلام تقول ما يا رسول الله إن زوجي طلقني وإنه يريد أن ينتزع مني أولادي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نك يجوا إفراد المهن إنه يجا طور هوا إذا حال أوجه جوادس أنت أحق بها ما لم تنكح يا ولا هذا أحق له أنت هذا قرصنا الأولى هذا أحق له أنت هذا قرص هذا قرصته يا المها أحق له هدو أبها مسؤول غير مسؤول أو سنهين هذه ده أحق له وما حد قد بايسامه هذا كأولا سيهين هذا ويلا ليهين هو إلى شنا وكنترولاه ولا كي يعمل إيه ده أبها قوي وحاس إسكت الدولمية أنا محتاج حق وذا كي مال لكن حياة بدن يكبت بعدها حياة بدن يكبت بعدها مركا أنت أحق بها الله ده جوادي ما لم تنكحي أنت هذا نقرسنين هذا أحق له أروي كا هذا جوادي ممكن نكلا تقال المها وين كيف فكرتها أنت نكلا تأسلم مركي نكلا إسكت حرس وهذا هو كعرفت ونبي حد يقول كوي مال وظلم كوي مال وجريمة لقى قلم وجريمة لقى قلم تعالوا حالنا ما كفير صدق أبدا قفك أد نولش اللي هو إنسان أما حتى أدا نولش هذا التوصل ده وحي ولا معناه له إنترنت سود مسه واحد كده يكسو وجيه كده يكسو وجيه وكا محيه تو إن لعله حلقة ورير كي يظهر إن نيجي يظهر إن نفسي حق أكجش أيضا إن نيجي كود إنه في مركه هرك في فكر قبضة عاطفة هي عقلك هايدين هرّي كأنك مكا قادن إنسان عاطفتك قادنين waxa ka fakar aqligaada ha shaqeeyo arinta ma ka sameeyso maxaa ka dhalanaya see wax noqonayaan natiijada soo bixi doonta maxay noqon doontaa waa in la fakaro soo ilaahay wuxuu aqli noogu beeray arinta haddaan sameeyo hadhow maxaa isoo wajahay wixii ku soo wajahay dhaqankaada ka soo muuqanaya reer iska dubisay reer kala dalqtir reerkii kale inta qofka qof munaasab ugu yahay ilmahaada ma la dhex keeni karaa muxuu kugu soo kordhin karaa xayatadaas ee noqon kartaa ka fakar qaraarkaas ka qaadan caadifada ku qaadan si waxaasoo kale isa kugu dhicin dadka ilmaha u dhiibaysaan waalidiinta hooyooyinka dad mu'ahaliina ha noqdaan jaahil ilmahaada ha u dhiibin jaahil dhibaatooyin gabdhaha haysto kuwa maxay haytaa hooyooyinka caadiga gujoogtooyinka iyo kuwa hooyooyinka suuqa fadhiqaadaysto naag maxay wax ugan gabdhaha mucallimaadka iskuulada Kenya fasalada hoose oo dhan fiiriya yaa jooga gabdha mucallimaad ma jooga mise nimana jooga ilmaha intay yar yihiin min class 1 ilaa class 5 yaa jooga yaa ku badan fasal iskuuladaas gabdhaha ku badan mise mucallimiinta yaa ku badan gabdhaha ku badan soo cunug intuu yar yahay macnaha hooyada xanaanadii hooyada camal kale inuu ka helo fasalada hoose oo dhan waxa laga shaqaaleysiyaa gabdhaha mucallimaadka laga shaqaaleysiyaa soo anaga meeqa gabdhaha quraanka xifdisaa joogto ijaaso quraan ka haysto ama dawaa qiraa'o ka haysto ama tobanka qiraa'o ka haysto ama alla qalabka oo yaraata xabsa haysto soo maxaa gabdhahaas marka ilmaha loogu aamin lahay gabdho badan oo mucallimaad joog naag maxay wax baraysaa intaas leena meel ma gaarin ilmihiina hadhow xasa qabsanaa macallin jaahil inta u dhiibto oo lacagna ka gurbisto iyo waxa sameynaa waas hada gabadha faraxmay waxa ka daran kuwa qodbasirada gabdhaha eber dhigaa ka daran oo shaati macallimaad gasha oo dugsi quraan ku dhex fadhiya marka taas ma aha in aweel macallimiinta quraanka dhan ay dambiga yihiin laakiin waa macallinka xun ee ku dhex dhuumanaya macallimiinta wanaagsan ee magaca ka dilay marka fiiriya dadka ilmihiina u dhiibaysaan fiiriya quraanka maanta wuxuu noqon wax dhaqaale laga sameeyo noqon qalisho qofka intuu mawjud dhaqaale u sameeyo dugsi la fura dadba jug wala soo bixisama lacag laga sameeyna wuu ka sii dhoofaa ku kala imaana uu sii gala shan dugsi sanad gudihiisa laba sano gudihiisa harkasa dugsigeeda intaana macallin soo doomartay sababtu maxay tahay muhiimadiisa ma aha inuu ilmo soo saaro muhiimadiisa ma aha inuu dad wax baro muhiimadiisa ma aha inuu maxay ahaato cilmi naafic dadka muhiimada ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa ta'aala uu xambaarsan yahay inuu dadka si nabad galay u gaarsiiyo muhiimadiisa waa inuu dhaqaale ka sameeyo waxay ka bacdi uu leen ku gato u dhaqaajiyo intaas waa dugsiga quraanka wuxuu noqon karaa madaaris tijaariya soo baxay dugsiyaal
ganacsi ah ha u dhiibina dadka noocaas oo kale ilmihiina ha ku aamina iska fiiriya waxa quraanka waxay baran jireen 10 aayad 10 aayad oo baran jireen 10 aayad markay bartaan maxay baran jireen haddana tafsiirkooda sii baran jireen macnahooda sii baran jireen markaas sanadood dheer ku qaadan jirtay marka qofka horta u dhiibayso ma yaqaan quraanka kariimka aha sidoo ku yahay macnihiisa ma yaqaan qofka quraanka kariimka macnihiisa ma ku yaqaan qalbigiisa galo in xiraaf kuma dhahay inta badan qofka badan ila an alquran manhajul hayat ma manhajka islaamka manhajul hayat waxyaabo nolosha ku iftiiminaya علموا أولادكم القرآن الكريم والقرآن يعلمه كل شيء من القرآن كبر القرآن كواحد استبراي مركا طبعا ما توبر تقف طبعا معناه هذا سي برنجل أيضا محي أمر إلى محو شيء محونا أمر محونا فرايا محا حلال محا حرام مركا بعد وقفك نقول مؤهل القرآن وهذاك وحبرك لكن قف القرآن كأقونين معناه سجرنين لفظي سجرين وشقق أو قفت بكو مالي رستسكو اسكت سفر ilmo loo keensaday lacag wuxuu dhan ay u sheegtay siinati gabadha macallimada ahayna maxay wax barid maxamed taqaan gabdho badan oo macallimada soo baxay yaqaan andalas markay muslimiinta ka talnaayeen gabdho waraaqiina joogi jir waraaqiin taqaaneen gabdhaha quraanka qor waraaqad gabdhaha quraanka qor mushafka quraanka rasm al-uthmani ku qori kar anta ma jirtaa gabar quraanka qori taqaan mushafka sameyn karto mushaf qori karto ma jirtaa maanta ولا بابي هل لو نادر هي وقت عادي بقى سواء سلمينت علمي gacantooda ku jira la baran jiray marka gabdhaheena wax bartay aan qadarino madaarista quraanka kariimka ayaga fasalada hoose ilmaha inta ayaga ku haboon ahkaamta fiqiga ilaa anaga dhexdeena isu sheegna anaga isku haboon baababka qaar gaarka haweenka u baahan yihiin gabadha inay sharaxda ka fiican inuu sharxo gabdhaha kale u sheegto fahansiiso marka jiil qurxan oo quraanka xambaara la rabo oo gabdha ah wali fahman gabdho taas macallimiinta nimanka inaa weerarayna ma ama aan lid ku nahay ma aha laakiin caruurta yararka gabdhaha ah yaa u haboon in gabdha loo dhiiba ku haboon ka oo ayada macluumaadda ay noqoto aamin u tahay oo maxay ahayd kuma xad gudbayso labana maxay ahayd ilmaha intay yareerihiin gabadha ku haboon wax barto asoo inaan barnaa marka oo maxay ahayd oo madaaris quraan oo gabdho leeyihiin magaalada hadda way joogaan way ka buuxaan in caruurta yar intay yareerihiin loo geeyo oo la baro oo ay quraanka barto ay diinta barto ay culumta shariicada barto intaas marka waxa waay xaqi macallin uga bixina tii kale intana maxaa guriyihiina xajista iska duminin ninkii hore inta ceyriso oo si simple u ceyriso ku kale wuxuu noqonaa dalaqas isku soo xareysan waxaan kala ku qabsanay marka hooyada ilmuhu tahay kan dambe waa inaad iska fiirisaa ilmaha maareyntoodana inaad fiirisaa caruurtaada qof caruurtaada ka tarbiyan kara ma qof adii hooyada isku qaadan kara ma waqtigee ku haboon aabihii dhalma siin kartaa ma u dhiibi kartaa ha korsado ha haysto waa inaad hadaa kala tagtaan masiirka caruurta waa inaad ka fikirtaan mustaqbalka ilmaha waa inaad ka fikirtaan see wax la yeelaa ilmaha dambe oo dhalanaya kuwa hore dhan maadaa ka warqabta kaa ku nafcinaysa markaana ma ka waranta آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ilmihiina aabayaashin ka ku nafcinaysa ma taqaan ma kuwii hore oo ta ku nafcin doonta mise kuwa dambe ku nafcin doonta ma taqaan mirageed saaran ku dhul yaalo lama daadi sama waana tuurtay waa daadisay ama waa dayacday kuwa kale inaad isha rabtaa oo koriso xafayd mar inay ilmaha colaad isu qaadaan hooyadeen wayna dayacday kuwii kale reer naga aaday nina naga raacday inay ilmo kale dhish anaga wayna xoortay anaga wayna laalaadis bari markay weynaada adaa istusis labadii ilmood kuwii hore way kuwii dambe colaad ku qaadayaan waa inaa fakartaa marka waa inaa fakartaa markasta noloshu sabar bay ku toostaa noloshu sabar iyo adkaysi iyo wax badan inaa laqdo iyo ku toostaa iskama toosayso innahu man yattaqi wa yasbir nabi la yusku guuleystay الله قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخادع إلهي وانا كا دورتي دهن أنا واقفنين
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم إنه من يتقي ويصبر إلهي كعوسضة وصبر الماء كنتو وصبر هكذا قصيص وصبر دقال سمينتيس وصبر علم برشديس وصبر wax walba oo gacanta u qaado wax aan sabar kaaga baahnayn haba yaraatee ma jirto marka gurigaada ku sabarto inama yufasaabiruna ajrahum bighayri xisaab ajirka u laalaabaya qofkii xisaab la-aan waa taas waxaa uga baxaynaa laba dhinac macalinimada dadka macalimiinta oo ilmaha u dhiibanaysaan inay yihiin dad mu'ahal laba gabdhuhu inay guryahooda xajistaan aysan ku fuudaan reerka inay iska dumiyaan qodobka saddexaad gabar kalaa jirta ayadana hawada la wadwaday dulmiga qoyska dhexdiisa isku sameeya adulmu dulumaatun yowma alqiyaama qur-aanka markuu sheegayo uu cabiraya halaag kastoo la sheega dulmiyaa la socda wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid wamaa kunaa muhlika alqura ilaa wa ahluha ظالمون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون انت قرآنك هلاك وشيغي وضد لبابيي ظلمي أي سميين بيكون هلاك سمين ظلمي بكو حكنا زوال النعم كان ظلمي حكنا عقاب تقدر كان ظلمي حكنا موت الفجأة وفكر إلهي أمك بقبطه يو كان أيضا أنا هذا مثل قيس كده يسكسر على عاقب مجد قرآنك هو عبد labadii walaalo u horeysay isdulmisay istagaashiyay ahaayeen isdisho qaabiil midba wax kii kale u quuri waay sabab uu dhintay wuxuu quuri waay gabar yara guurkii ilaahay siduu systemku u sameeyay uu diiday saan hore uu yidhi anaa saana rabaa marka laaqtulana ku waa ka taqabus muxuu faa'iiday marka fa asbaxa min annaadimiin shalayto nolosha ku dhamaystay taan waxaa waay dulmiga haddii la isdulmiyo maxay heeto ilaahay waa soo hadlaya subxaana watacaala in allaha yuhmil walaa yuhmal waa lagu kaadinaa laakiin marka dambeeto waad halaagsamaysaa ayadan maxaa loo gabar yar oo dhalinyaro oo layla la yiraahdo ayadan oo familka ay dulmiyaan gabadha laba jariimo ay kulansatay jariimada koowaad ayadoo yar ila soo sira oo been loo sheego hooyada way dhimatay qaabkay u dhimatay iyo maxaa ka saxa maxaa ka run ma dhahayn laakiin qisada say u socotay maxaa loo yaqaanaa dulmiga ilmaha lagu sameeyo tarbiya ahaan maxaa la dhahaa الصدمة الطفولية لها الصدمة الطفولية وعروض قدرتها laga galo markay ku soo mutaan gabar walaashaa dhashay mid abtigaa dhalay mid eedadaa dhashay mid habarirtaa dhashay mid adeerkaa dhalay qofka insaanka uu ku soo mutaysan kara soo asagoo markaa duruuf ay hayso geeri baa dhacday ilmaha la kala qaybsaday agoonay noqdeen waa la kala qaybsaday xoolahood waa la boobay waa laga faa'iidaystay ilaaha qur-aanka uu sheegay sama ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naara وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا حتى هذا القول الله إلهي وحدد إلهي كعب صنعنا سوى نفسنا والله الله نظيم حتى سيبه هديلها والله الماء قوتا هذه كبق نفسنا على كسوقات هذه أدوانت إلمها هذا سيح الله ممرته إلمها قالت أضطب صاغيت المسلمين تأكتغان والله كتغ وراشا كتغ تاورد هدول منها بحد جبين حتى سوى نفسه فليقولوا قولا سديدا ولا دخل سوى نفسه marka sadma dufuuli waxa way caruurta godobta laga galay yaraanta la wado dambi bay ka galeen maxaa adi ilmahaada iyo ilmaha walaalkaada ama walaashaada dhashay maxaa uu kala yaxane maxaa ka faa'iido maxaa calaad tusaysaa kuwaada waxay ku noqon doonaan ma war u haysaa sabab war uma hayso kuwaana aad gooni wax u siinayso inay hadhow ficnaan doonaan iyo inay xumaan doonaan war ma u haysaa maxaa uu kala yaxane maxaa kan oo koraya hadeer oo ku adig kula joogo ku soo mutaystay maxaa cadaalad darrada u tusaysaa maxaa u dulminaysaa dulmigan ku samaysay noloshiisa dhan way la soconaysaa ma ilooba sadmaad dufuuliya waxyaabaha ilmaha yaraanta lagula sameeyo madal xayaad way la soconaysaa noloshiisa dhan way la soconaysaa maxaa marka godob u beeraysaa intaa xumaan iyo dulmi ku beeri lahayd haddaa wanaag ku beerta ka waran haddaa wanaajisa ka waran واجد تطفي عنه وصفة وحياته بكر إلهي وصابه يقف قلب بني آدم وهاسي ماذا سيقول حنوبر بالله إلهي
أبي هذا أفكار أنا سوكري ما بقى أنا أدري من أبا ما ندري أما هو ما ندري لكن وحا أنت بدنا نعلم مجتمع نحس كل على عالم إن قفك مركي ظروف أي قبصته لو بدي ماشي كبحهم إرميه قفك لا قعدت أقلان أما هورين قعدت أقلان أما أذاك قعدت أقلان أو عونك بهدلهم وأنا لا عيله وكوكرة وأنا لا عيله وكوكرة مركز محيهد وهذا بكو ويناد وحي الصعودين نهض سدنا قدب لصعد وإلوب هو وقفك أركي كذا مركز تاسن وحاوي ظلمي قد إحدى أصدر منين هل قوينا هذا واجهل إن قفك بقى رجال ما تقول ورجوب الباري ورجال سيد هذا قبل الشيفتي كذب من هذا نقولك لو عياري ومحيهد أيضا يرى في سنة مكرا لو قولي وحساسة مين ياوى أخرب الناس وضدك وحي جوا أبريد النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابي كل سوق قبص يا هنا الخالة بمنزلة الأم أبريد تحكي جستان باسك هو يدي جستان باسك هو يده أبريد كل جستان هذا اللي يدل بسكور سو دبات ما سو آبا ما سو فرح ما يا الخالة بمنزلة الأم لأن هو يده قفلة الشيء والناس وده نورين أور والسحنان وقبل أبريد تهاي ويلك أبريد تهاي وعمل هذا قلت إن كل حد قلت وذنب يعني ظلم هذا حق سوء صوت لا عافية حق سوء صوت لا عافية لما قارن كم بعد حق وحال حق وتيجي وقتها بعد الكهوس سنجوا سان حق أسيرون مرة والله وين حق وخاصة بعض الكريمة لكن جوقت ما هانس ما هو بصوت لا عافية مركا إن الله يستر يا عبادي إني حرمت عليكم الظلم فلا تظالموا حديث القدسي صباح الضوابط أنا حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا نفتي إذا كحرم إن عندها الظلمية أذيك دحلينها أستظلمنا أذيك دحلينها أستظلمنا مركا يقولون مثل قوس دحليس كده وظلم ذوي القربى أشد مناضة من وقع الحسام المهند لكن شاهدت هذه الآية ظلم قرابة وكحم بديه سيف إنديا لو سميه كإنديا كنعسي قلبت الأسود هذه باقي قبل الإسلام مركبوا السيف إنديا لو سميه وحكحم بديه ظلم حق قرابة كاغ إيمانس لأن بلا بقى إلوبا جرح العائلة لا يشفى أبدا dhaawaca qoyska qofka uga yimaado ma ka raysanayo qof uu soo gaxanayo mana ilooba inaan la istoomin marka oo la isku xadgudbin qofka bani aadamkaana hadduu ku hoos yimaado wanaaji walaasha hadasho walaalka hadalo ina adeerka hadalo ilma abtiga hadalo daris hadalo meel kale meeshuu maa qof bani aadana hadduu ku hoos yimaado wanaaji لأن waxaa wanaag ahayn hal jazaa'u al-ihsaani إلا الإحسان قف مكو وناك سمي وناك هلا وجزاء سيئة مثلها حمان إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قفنا هذا سكونا جزء وصفة عمرس بني وحاليا مكو وينال إلا كنا في عسر ومالك على صابح ووحا كفي الإله أكسير يعني وحلا ولا جيالي بني آدم بهو فيها ويل قدن يضب ولا أروريانا سبانا ويل قدن يضب ولا أروريا إسكارو قفاق صباحا مركا أو قف أمد أنفع إليه كذلك سبحانه وتعالى مركا بني آدم كان هدوكو هوسي ماذا هكو حد قدين هظلمين إنا وناجسو حطو سيسو كود دار مركستو قفك مركا إلهي أكتسل أجل بذكيه ليسا إيه شرف يذكيه ليسا أصلينا وحاليا وإن نفعي وين كنت لقيت إنه إلهي كاسي سبحانه وتعالى مركز سنقو قف وناكسا أو صالحة وراكم هنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا دربيان حاليا نسبة لوي النبي قدر دربيان نسبة حقاجي نبي مسؤول دربيان محمد تذكر إننا مرتسورا ويديدين maxaa darbigooda ka dhisayna markaasaa uu dhisay markaasuu qaala lama qolok inaka lanta sadeeca macaya sabra waa maxay ahayd soo kuma inuu yiri ma taqaanid haylaha ma way sabr kartid marka maxaa ilaahay ku dhahay
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا دربيان لابو ويلو يرى أسكله هانتي وأجر بنك وحس مجري جنا عقد لوكا لو دوج جري صار ذهب أما يدو قلنا لوكا لوكا يجري وقال لقشن جري إلى يومنا أنا دوك تسكله جوي كجرتا ودمو ذلك يقول حتى إندي تركي ولا وش يا إلا أن أقارها لك يدلوك لقليل ولد غير كوجرا فركا قرآن فوقها فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز وكان تحتهما كنز وكان تحته فأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا لابد علوه يركا أبوه ذو هاي قف وناكسن هذا أنا ما أتوقع نفسنا المها هذا حأقول له مساحته وناك ذات وناجس المها هذا بريء فإذا بهلاي إلهي وقوع إلى الله سبحانه وتعالى وقوع حفظنا كامل يعملنا وحي أوطى بعدنا والله إلى الله سيد الله سبحانه وتعالى إلى الله يا الله صدري نبي الله صدري سماك وهو بدر بيا تسأل بيه صابتي وناجي آبا أضامك وناك أسهلي كرا إن أدخل حماس محاك فائدة إن أقف حماس محاك فائدة حوك فائدة سما هذا نشر وناك أدوك وانفعايا هذا مثلا وناك إلمها أدو وانفعايا مقامي هنا وإن هب العنقيس وإن هب لا عنقين سبحان تدخل حكلاني هنا مقام بدخل حكلاني هنا إلى أكتسي يا رح زنايا فرصتي هنا because أبو في عرض لله هبل بدل هبل الميسو والله قرابة والله عاطفة والله نعم هبلايو فعلا المهد ويرلي محاكا فائدة مك إنا قف حما يسمك محاكا فائدة إنا قف دلمس الله كيا بحيث إيجا شاب marka bani aadamkuna markuu ku hoos yimaado oo haddana uu gabdho sii yahay haloo naxariisto hala sharfo maxay heeto hala maamuuso beritoole waxa ka faa'iidayso ka dhashay ku galata mataqaanid aan waxaa qoyska dhexdiisa yaa la isdulminin cadaalad darrada مثلا gabdhaha markii la isla qabo kaleeto laba reer ay kala yihiin ilmahaada ilmihii isla dhashay ha u kala eexan cadaalad darraha tusin waji xumaha tusin maxay ahaydo farxad xumaha tusin kuwaan waa isla dhasheen hal meel ku abtirsanayaan hal farci wada galayaan hooyooyinka kala duwan laakiin hal aabaa wada dhasama marka sidoo kale taan waxaa leenahay gabdhaha la isla qabo adinka dhexdeena isku xadgudbina soo waasha lagula qabaa ku xadgudbin ha dulmeen حق بقى إنك ده أولاد إنك ده حس المها أسكت قدرين كوان أو كلا يحن وحياة قبلها كل تاون كوان سند شيء أسكت دول منه ثولا شيء شيء ثولا كذا رسيله كلا أو كلا يحن مركز تعدل ده هذا فائدة لهم هذا إلى أن رجعلها إن الله يأمر بالعدل ويأخذ آيات مركز تو بجمعه على الأخيار سواء معيتها بني آدم كوفي عدالتك جعلها مجسطو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى أن أمر العدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر فاحشة وزنا والمنكر حماتي والبغي حد قذفك سدحنا سماء والوير سدحنا سماين سدحنا سماء والوير محاوة عدالة اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم إلهي كعبصد علمه عدالة وسماء إحسان وإن قف أوتوس إن إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن إلهي يعبده سلوا أسلق أركاء عمر قلت هذا أركيننا سلق أركاء يا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مركزنا وحمناجسون مركزنا وحقلوا عنا مركز إنا قف أصيل أو ذلك أنت إحسان أصبح يا نقطة إحسان في الدقالة إحسان في العلم إحسان في المعاملة إلهي وفجعل قف قاس محسن ذاتك وناجناية قف وناجناية وكا نقوم قف محسنة وأمد أنفعاي هسمين عدالة درها سمين عدالة درو هسمين هانو كل دقم من ذاتك الحديث يا واحد قوها لا سما عدالة درها ذلك أما الماء ذوك لا يحطو أما ولا وكلا يحطو أما نيك حاسس وكلا يحطو أما شعب وكلا يحطو عدالة درا الله سميه من الحبايب قبيل لو قدك وكلا يحطو وحبل لقوا ذلك
إن الله يقيم دولة عادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة غير عادلة وإن كانت كافرة، وإن كانت مسلمة. إلهي هو توسيا دولة قال وعدالة سمينيسو، ما توسيا دولة أن عدالة سمينها مسلمة أهاته. إلهي هو توسيا دولة عدالة كل رقميس قال دولة قال أهاته. يقيم الدولة عادلة وإن كانت غير مسلمة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة غير عادلة وإن كانت مسلمة. هذا مسلمة عدالة سمينها ما توسيا لك عدالة نورش كتوسط، عدالة نورش كتوسط. إحسانك يتعامل تذكر الإناث وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سقوط كان وناقة أنا سوق كامل وناقة يبرقة أنا سوق كأسان سعر الإنسان وأديك رح ينستر الإنسان وإسكحة كلبتان. ما كانت تصحيح كذا سمكة وحيوان مجتمع إصناعي وعداوة شحناء ذكر كل حبيرة علاقة بقي حد كذب وعمده أمد ما تصابات نفوق ما لاقيه قالوا والبقال كلا دير التقافسيس ويحي معلنا حنا كهسكستا ويحي دكتور سحمنا ويحي اسكو شقاب واسكو لقيه ويحي اسكو حرفضة واسحمنا حبا اسكو قورايا محال فائدة مكة حوالي فائدة قوري واقع قيرة يحسن نمدا يحين كل قد أعمال شيطانية ودقن الشيطان قفك مسلك وحياس النظيف فيها الله حسن نمدا حقد قوري واقع قفك قوري ويس أنانية بس كل حوكة وكينس وصفات سيئة صفات سيئة ودقن حن وقفك حوكة كينين بدل كده كبد محايد إيثار تذكر نحو قلاته محسن نغطى قف رون نغطى قف سلاحة نغطى قف وركي سعادها نغطى قف رون الشيء نغطى بيلو أنا نغط منافق أنا نغط مجابلة بدن محايد دور عدسة حوكه سين إنسان واضح. هذه لا دقم تعامل كسفي عينها، هذه لا شق إنسان تعامل كسفي عينها، هذه قف كل قرص تعامل كسفي عينها، هذه إحسان خير له صدقتك أنت سيفي عنتها. وكا قف ولا قف قصوا واضح قف بحيث بناك يا أنا لقد أقول أنا غامض قبصان دقر له أو جانس قال أنا هن ألقوه بدن أمري بدن فتنة أبور بدن وحاصل قف مكان أخلاق ذميمة قف ولو محيط كفوا هذا الربع وكفوا هذا نقطة أخلاق ده حميدك وإلى جعله كنت دا عني مدى صراحة لا بحرنانته إخلاصك محيط وحسو قورسته عاوسته قلبي ونفسنا وح ونفسك أي ماذا قلبي ونفسنا وح ونفسنا أي ماذا والنقطة مكا سفوي كاس ونفسنا أكل كذا لها مكا guryaheena inaan hagaajino labada maxay hayto caruurta diyaarintooda in waqtiga hooyooyinka maasha Allah dhankaas way ku fiican yihiin caruurta in waqti laga qaato caruurtaada inaa waqti la qaato majaalista cilmigana aa keentay rafiiq kula noqdaan kula soo socdaan marka noqdaan dad aqoontii iyo goobihii cilmiga isugu imaanayaan social media aafadiisi in caruurta lagala dagaalamo ilmo yariis oo guguurina ama sanad waxaa arkaysaa telefoon oo dhiibay صح مياه صح تربية أساس كجزء كبير هو يدك يا مالسا هذا عنق يهاد سوق عين أصلا لما لو سنة جرى تلفون سجاب بسكور عنق سبحان الله بس دمرت دماغه مسكح دي سبب بيس هاد بينه بانته وقولي هم قاعد يجوا على سوق معنا وقتي عيدا يوم اللي حباسين أو إيه بكسان عنده أصلا رقم عمله وعنق كثير سنة ما يقول جرى سنة أما لو رفض المسلم marka hadoo baxar taa ku cunaysan noqdo aniga saas amaanta yeesh maxaa la noqdo ku noqdo suugiisana tarbiyadana dib u laaban ilmaha waxyaabaha lagu mashquulinaay ay intee jirta marka cunug ka tasaday u dhiibtay ee baa u dhiibtay telefoon u dhiibtay maxay qabanaysaa ma yaani ama guri dariska ku maqan tahay ama arooska ku maqan tahay ama wareeg kale ku maqan tahay hadoo marka cunug ku soo weynaado oo soo qaangaaro anigu kan leeyahay سوي حيانا فأي مغل لا يه نقول على وقتي وقت تربية وكذا بهذا ساحة وريك أبي واضح يا
ووقت لقادو ميس متى صحيح والله كسوق له يقولي أقولسن يكون هذا قولسن هراء المهين وقت في عنا وتربية لقاط قرآن قصص كيس أشياء أحكام دي سبرة أنتوا قعدت هذا كل جهة واحد برويس بريمكو سوينا مثلين دوتي لما أقول كرتي وكل دجالة وقاهر معنا شو فكر بنقول يسوي كلا دونانيسا مركا علينا هاي دانك تربيتنا هلو تدارو سوق سوق ويا سؤالنا وإذا فريني الله سبحانه وتعالى